بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت عن وناكسن داوديال مeel kasoo joogtaan waa barnaamijkeeni saddexaad fikir iyo falanqayn wali waxaynu ku dhex jirnaa mowduucii ahaa identity ama aqoonsiga qofka culimadu waxay ka soo hadleen qodobo badan oo kala duwan sidii barnaamijka bilowgiisa aan ku sheegay wali waxay nagala qayb qaadanayaan aqoon-yahano kala duwan Sheekh Almis Sheekh Xasan Sheekh Cabdixakiin iyo Sheekh Cabdirasaaq إن شاء الله برنامجنا دمنا وحنا نقرأ قيب قاعدين دونا كل هدي الله يرحمه ضد كله وكل دول وحنا ما تجي لنا قضب كيس التحاد أو هوية ده أما identity قضب كيس التحاد أما حلقة كيس التحاد وحكوسه دوينا شعب عبد الحكيم شعب عبد الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين لبدا قضب هرا مركين كسر هذا اللي قضب كيس التحاد وحولنا يا هوية ده وليه هاي أما identity قفك مسلم كليه هاي maxaa hor taagan inuu dabaqo waa maxay waxyaalaha ku xeeran ee u diidaya inuu qof muslima oo wadankiisii degan uu noqdo yani inuu noqdo qof Soomaali ah oo muslima oo taariikh iyo wax kastaba leh inuu noqdo maxaa u diidaya dabcan waxaynu hore uga soo sheekeynay in ay hadda jiraan wax la yiraahdo al-awlama ama sidii af Soomaaliga edegeyn waxay markaa awlamadaasi ama edegeyntaasi sheegaysaa in qofka jooga Mareykan ama Yurub jooga ama Asia jooga uu la mid yahay qofka jooga Afrika ama Australia oo caalamkii oo dhan la wado in meel qura lagu soo xareeyo oo ay isku wada afkaar noqdaan oo afkaartiisii uu sitay ee u khaaska ahayd ama dharkii uu sitay ee u khaaska ahayd loo tuso marka media laga hadlayo oo media u fasiro inuu yahay qofkaasi waa xaq jir waxa uu sitaa waa xaq jirnimo inantaasi waxay sidataa waa xaq jirnimo oo wixii oo dhan loo fasiro si uu qofkiiba uga cararo wixii asalka u ahaa oo haddaynu example soo qaadano hadda qofka muslimkii marka uu tago ama inanta muslimadii marka ay tagto Yurub iyo Mareykan oo ay sidato niqaabkeedii oo ay sidato dharkeedii asturayay markiiba waxay u arkayaan dadkan kale wadanka ay tagtay in ay yihiin dad ka duwan waxan ay yihiin oo إعلامكي أما ميريه سيدو ورفافنتي سيدا أفسرتي أو قفك وحاستا إنو يهي قف وحدليا إنو يهي قف مالحون كيمي إنو يهي قف آن أقلين هرماركا سيدا أوجد هدي أي إننتي قاعدة تدر كيدي أستوريي إن لو وضع أركيو نين مصريا وحيقا شيكي أو برازيل دوان كسور نقضي وحيقا أنيقي حاسكي وضع السعودنا marka xijaabkii bay sidatay oo may niqaabnaynba ayaa islaam bay aragtay markaasay igu tiri waxan ay sidato xaaskaagu markaasaan ku iri waa xijaab baa la yiraahdo dadka muslimiinta aba qaata waxay tiri waligii maan arag qof waxa sita ee ma isku kiin ag sawiri karaa marka sawir bay la qaadatay marka waxa weeyaan may arkin waxan oo kale ama waxa loo sawiray sida kale hadaynu u dhignaba waxa loo sawiray in ay tahay waxan ay inanta muslimadii isidataa inay tahay wax ka soo horjeeda horumarkii qofka muslimka ee mesela labkii markuu xagga tago ama uu halkiisaba joogo ayaa waxa loo sawiray waxana qaadanin sida isku dhigin oo waxaba jiri jirto isticmaalkii inoola yimi qofka askariga ah intii isticmaalkii noo yimi intii ka dambeysayba looma ogolin inuu garkiisa la baxaba hadduu maalintaas soo xiiri waayo ciqaab baa la siin jiray marka waxaa dhacaysay xitaa waqtiyadii aynu soo marnay wadankeenan aynu soo marnay waqtigii dowladii hore ay jireen
markaan ka soo qaato dowladdii militariga ahayd ee inqilaabka waddanka ku qabsatay way diidi jireen inantu inay xitaa madaxeeda masar saarto, way diidi jireen inantu inay shaadh gamaca dheeraa u soo qaadato. uniformka iskuulka wuxuu ahaa inanka iyo inantu isku mid bay ahaayeen, waxay qaadanayaan isku mid bay ahaayeen. sidaa awgeed waxaa dhacday in dee qofkiiba uu laga eriyo diintii iyo ku dhaqankeediiba, loona sawiray in diinta oo lagu dhaqmo ay tahay wax xun. marka qofkii waxaa hortaagan muslimka ahaa ama a jooga waddankiisii ama a tago meel kale, waddankiisiina ghariib buu ku noqday, qof ghariiba. meel kale hadduu tagana kaba sii daran, oo waxa aad iyo aad inoo soo galay waxaan hadda lagu isticmaalo ee aynu hore uga hadalay la yidhaha edegeynta ama alcawlama, af ingiriisigana globalization ay u bixiyeen, oo ah in ka qaalibka ah ee maanta isu haysta inuu adduunka maamulo ee isu bixiyey inuu yahay bulshada caalamka, in uu dadkii oo dhan uu u sawiro inay yihiin waxaan isaga fikraddiisa qaadan oo sidiisa aan u fikirin, waxaan fankiisa qaadanin, waxaan qaadan raashinkiisa, wixii aan qaadan sida uu isagu u socdo. xitaa ay soo gaadhayba yani surwaalkii uu u gashanayay inanka jooga Maraykan uu u gashanayo inanka Hargeysa maanta kula jooga, oo uu baridiisii in ka mida uu muujinayo, oo ay noqotay in uu ku dayanayo ka xaggaa jooga. waaba ta loo bixiyey dhaqan aan dhoofin, yacni dhaqanka aan dhoofin ee Hargeysa ku jooga ee hablaheennii iyo inamadeenniiba ay ku dayanayaan waa ka xaggaa jooga. waa kii rasuulku markaa yidhi calayhi الsalaatu wassalaam latatabacunna sunana man kana qablakum shibran bishibrin xataa idaa dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuh. markaasay yidhaahdeen alyahuud wالnasaara qaala faman, ayuu yidhi rasuulku calayhi الsalaatu wassalaam. yacni sidii ay wixii ay tallaabooyinkay qaadeen oo dhan baad qaadaysaan. hadday galaan meel xun waad ka dabagelaysaan, hadday kilaab galaan waad ka dabagelaysaan, annaguna maxaanu kilaab u yeelan weynay ayaad odhanaysaan. waxyaalaha kale hortaagan waxaa ka mida iskuullada ama jaamacadaha ay ajaanibku ka samaysanayaan waddamadeenna. oo hadda Hargeysa haddaad eegto jaamacadaha ka dhisan 80% waxaa iskale waa jaamacado u ah laamo ama branches u ah jaamacada Ethiopia ka dhisan. uma dhigayaan akhlaaqiyaadkeennii, uma dhigayaan waxaynu aaminsanayn, waxaa loo dhigayaa waxay dad kale aaminsan yihiin. iskuullo fara badan ayaa laga sameeyey waddankeenna oo meelo kale laga keenay. iskuulladaas oo dhani uma jeedaan yacni inuu ku jecel yahay kuguma samaynayo, inuu ku jecel yahay uu leeyahay maskiinkan aan waxba aqoon waxbar ugama jeedo, ee wuxuu uga jeedaa maskiinkan aan waxba garanayn ku soo hanuuni dariiqadaadii. sidaa awgeed iskuullada fanka waxyaalahan aynu daawanayno waxaasoo dhan waa wax ka soo horjeeda. laakiin qofka muslimkii maanta wuxuu joogaa maalintii uu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wassalaam in uu dhimbiil gacantiisa ku hayo. markaa dhimbiishaas uu ku hayaa waxa weeyaan in uu ku adkaysto waxa uu isagu aaminsan yahay. wallahu lihi tawfiiq. الله يبارك فيك. واي شيخ البس sidaa uu sheegay sheekh cabdixakiin wuxuu yiri caqabado badan baa hortaagan hawiyada qofka muslimka ah, oo ay kamid tahay globalization kaas oo ay kamid tahay aqoonta qaabka loo baranayo, oo ay kamid tahay alla musalla ala maxamed. globalization kaas oo wax walba wata, labiskii wata, dhaqaalii wata, wax walba wata. caalamka islaamiga marka taariikhdiisa dib loogu noqdo, inkastoo barnaamij taariikhda aynu xagga dambe insha Allah ka qaadan doono, ma soo mareen dagaal noocan oo kale ah oo sidan maanta isaga oo aad u casriyaysan oo aan ahayn in qori lagu qabsanayo, ee in afkaartaada mindsetka dadka in wax laga bedelo la doonayo, ma soo martaas leedahay marka taariikhda dib u eegto. waa bismillah sama rasuulillah jaakumullahu khayran. waxaan soo xasuustay horta waanagi markii hore yiri lawlanku waa sunno kawniya, waa sunno kawniyo ilaahi ah weeyaan. ninkii Algerianka ahaa ee Malik bin Nabi
maalik bin nabi aragti ka duwan aragtiyo dad fara badan buu qabay maalik bin nabi oo faransiiska wax ku bartay falsafada bartay markii dambana aaminay inay muslimiintu dib ugu noqdaan diintoodii oo ay midnimadoodii dib ay u doonaan ayaa kelmad buu ka tegay markaa kelmad wuxuu ka tegay isticmaarku daraaseeyey isticmaarka markaa kelmad kaluu ayuu xardhay oo lid ku ah markaa wuxuu yidhi isticmaar ma dhaco globalization ma dhacayo haddii aanay jirin cid u diyaara inay qaadato markaa kelmadda wuxuu xardhay kelmadda waxaa lahahdaa qaabiliyat alisticmaar isticmaar waa jirayaa waa la kala xoog badnaanayaa waa la faafinayaa ee adigii wax lagu faafinaya laba mid baa tahay inaad diyaar u tahay inaad qaadatid oo daaqadihii iyo albaabadii iyo dhegihii iyo indhihiiba kuu furan yihiin iyo inaad diidid kelmadda waxaa lahaa maalik bin nabi kelmad la mid isna waxaan arkay ninkii South Africa xoreeyay ee madooba Nelson Mandela isna kelmad kale cajiiba ayuu isna lahaa oo wuxuu dadkiisii buu la hadlay dadkiisii madooba buu la hadlaya wuxuu yiri haddii aanu dhabarkiinu foorarin cid idin korimayso nin taagan cid ma korto buu yiri ha laakiin ninka foorana jilbaha qabsadaa wax kasta dhici ekada hada ninkaasna waa ninka masiixiga ah laakiin 720 sano kadib halgan kelmadda xardhay ninkana waa ninka muslimka ah ee Algeeriyaanka ee islaamkii maxay tole u heelinaya dhacdooyinka taariikhda su'aashaada dhacdooyinka taariikhda soo maray tan waxayna soo martay waati muslimiinta la qabsaday khilaafadii Cabbaasiga ahaa waa kii qolooyinkii Tataarka loo jiray Mongoolka loo jiray waa kuwii cagta mariyay khaliifkii ugu dambeeyay muslimiinta waa kuwii dilay way dileen markaas intay guriga ugu yimaadeen ayaa waxay yiraahdeen halkee dahabka iyo hantida ku qarsatay markaas meel uu joogay buu jabiyay markaas waxa loo dhaadhacay maal qaaruun dahab ah markaas uu qaato idaaya markaas hogaamiyihii Tatarka ku yiri lacagtan aad qarsatay haddaad siin lahayd ciidankaaga iyaga naga ka difaaci ilaa kuma aanu qabsan lahayn kiish inta lagu xiray ayaa la yiri farduhu haduu rabaasaan hasa lagu dilay muslimiintu halka marayo oo baaba'san oo meel kasta la qabsaday muslimiintu ciidan ahaan ha u jabaan dawlad ahaan ha u jabaane laakiin weligood diin ahaan uma jabin weli muslimiintu diintooda kama faaninoo dadkii sidaa u qabsaday ee sidaa xooga u lahaaba waxay bilaabeen inay iyaga ka dhex shaqeeyaan diintii gaarsiiyaan iyagiiba dib u muslimay iyagiiba diintii qaaday iyagiiba eeshiyadii kale diintii maxay tole gaarsiiyay marka su'aashan sidan oo kale muslimka in maskaxdiisa la dago oo maskaxdiisa la maydho qoloftana muslimka ahaado damiirka iyo dareenkana cid kale laabtiisa uu fadhiyo uu muslimiinta dhexdooda ku dhex lahaado sidoo Sheekh Cabdixakiim sheegay iskuulo iyo jaamacado iyo aqoon-yahano iyo siyaasiyiin kula midab ah oo kula af ah oo kula qabiila oo kula jilib ah hadaad doontid laakiin isla xilliga raba si kale ina u noolaano oo dareen kale uu maxay tole ku jiro adduunka ilaa adiga ku necab nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo diinta in la qaato lagu dhaqmana cadow ah wax kale in la soo waaridana ka helaya marka maanta dareenka muslimiinta ee quluubtoodina la masaxay aqligoodina la masaxay ubadkoodina la dhaxlay la doonayana culture-koodii in la baabiyo waa curd bay muslimiinta ku hore uga dhicin muslimiinta dawladooda la jabin jiray waa la qabsan jiray laakiin dareenkooda damiirkooda noolaa markaas ama jihaad iskaga celiyay ama ummadda wax wacdiyay ayaa maxay tole ayaa dhici jirtay laakiin maanta imisa qof oo kula muslimiin hargeysa kula jooga ayaaba laga yaabo inuu gacanta ku qabto yiraahdo nooda danbay noo wadaane adiga ku arkaan cadowgii isagana loo arko saaxiib sokoyihii marka guntaynu ka jabnaye baarkun kamaynu jabin naam jazakallahu khair aad baad mahadsantahay Sheekh Almisaan runtii qodob fiican mad ka hadashay waxaan kusoo wareejinaa Sheekh Xasan wuxuu sheegay Sheekh Cabdixakiim in maanta identity-ga waxyaalaha dhinaca la nagala diriraya waxa kamid ah in jaamacado laynaga dhex furay fara badan jaamacadaasi markii adduunka islaamka oo dhan dib u eegto dal kasta wuxuu ku leeyahay jaamacado waaweyn marka hadii jeer dadkay soo saaraan in dufcadaha soo saaraan way ka fikir duwan yihiin kuwa dadka muwaadiniinta ay gacanta ku hayaan jaamacadda Mareykanka ee Qaahiro ku taala ama Beirut ku taala meel kale ku taala ayad maqlaysa innagana waa ka sheegay jaamacado badan baa dhulkeena ku yaala sidoo kale waxa jira safaaraduhu inay leeyihiin mulxaqiyo waaweyn oo saqaafadeed oo culture-kii Faransiiska saxaafad ay luqadii Faransiiska dadka barayaan culture-kii Faransiiska barayaan waxa laga yaabaa qofka halka mulxaqaasi fiican u dhigta
inuu isagoo hargeysaba joogo hadday safaaradda ka horta inuu faransiis noqdo marka sideeba aqoontii islaamka looga durkiyey baan doonayaa qodobkaa bal inaad arrintaa ka dheer daba tagto بسم الله الرحمن الرحيم horta qadiyada luqaddu iyo qadiyada hawada aynu ka hadlaynay cilaaqaadka ka dhexeeya marka hore wax weyn waa cilaaqa toos ah waayo luqaddu waa asalka moogtay waana meesha runtii mujtamacaadku ay ku gudbiyaan waxa ay wadaan mar walba diyaar bisa imika wadamada yurub dee waxaad arkaysaa gobollo yaroo dadka ku nooli aanay ka badnayn baa laga yaabaa dhowr boqol oo kun oo qof oo luqadoodu ay quruunin jirto ilaalinaya oo laga yaabaa luqadoodu luqadda koobaad inay tahay stoor ka dhigay dalka ina galay iyaga wax loogu dhigo caruurtoodii wax loogu dhigo lagu ilaalinayo marka horta luqaddu inaad ka cararto luqadaadu oo qofku uu u arko inuu luqadaa kale hadduu gaadho inuu allayla halkaa gaadhay waa ducfi qofka naftiisa ku dhacay weeyaan qadiyadan jaamacadaha history dheer bay jaamacadu leeyihiin caalam islaamina jaamacadaha ku horreeyey oo iminka ashar oo kaleeto waxaan u malaynayaa 65 sannadood bay Oxford University ku horreysay baan filayaa da'da may ka badan nacam qarni iyo dhowr iyo 60 sannadood bay ku horreysay ay ku horreysay jaamacadda Ashar jaamacadda Oxford jaamacadda Oxford kaniisad bay ahayd sayb kan ma loo oran jiray moogtay masjid al-Ashar buu ahaa kana kaniisad buu ahaa Cambridge kaniisad bay ahayd waa kaniisaday ahaayeen waxa weeyaan diintii baa lagu soo socodsiiyey hataa imika mawduucan aynu qaadanay ah bachelor master PhD de nooca islaamku caynkaas u lahaa way waxyaalaha inaga guuray markii ayna soo galay gumaysigu uu inaga bedelay manhajka nimankii aqoonta u hayay caalam islaami ee mustashriqiinta ama oran karna ama musanniciinta la sameeyay noqday misandaa Xuseen oo kaleeto oo de tacliinta ragga hogaaminaya Masar oo kale ahaa wuxuu aaminsanaa ثقافة قربية شرها وخيرها بينو قادنو أدينو هاي رير حقنا هاي خير كذي شر كذا بينو قادنو مو كل الريبينين أديدو تكنولوجيا دو وريكتا إن شاء الله عرض تاريخ ده نكاه هذا الدون أيو الدون تاريخ ده التكنولوجيا دو لا ده هالكي صامر تيصير صوت تيصير بين قلبك سوق ديبي وموضوع قوني وقت يصير نكاه هذي لكن مثلا موضوع الثقافة ده يلقط ده يدقنك يسكيال كي يسوكيسينتا موضوع النوع الساسة وياله toos xiriirka ula leh hawiyada qofka bini aadamka uu leeyahay waxa weeyaan waa waxyaalaha runtii atharkii uu inaga gumaysigu weeyaan maantana suuqyadeena way yaalaan oo dhulkeena way yaalaan waayo imika iskuuladeena haddii aan lagu dhiganin luqada ingiriisiga ilmi waxa ma baranba marka dadka caadiga ee waalidka caadiga ee iska normalka ayaa sabab u arkaya marka waalidkiiba u arkaya ardaygiiba u arkaya maamulkiiba u arkaya hatta waxa laga yaabaa dawladdeena haddaan qofka ingiriiska aqoon inaan shaqo helin baa suurtagal ah moogta oo shirkadda hadduu tago waxa laga yaabaa ingiriiska aqoon inaan shaqo helin ba aqoonta doontid lahow maanta hatta waxa laga yaabaa luqad kale hadduu yaqaan inaan shaqo laga siin ba marka waa maxay waynu qiraynaa oo luqada ingiriisiga wax noqotay luqada caalamiya ولكن هذه ما كما ترجميسو دقنك انجليزي نقولنا دقنك عالم كودن كما ترجميسو وحوين علمكو مثلا انك مسلمين مصيبه ku dhacday meelo badan bay thaqaafada islaamku ay aad ugu ururtay waxa kamida مثلا الشرق الاوسط خاصه مصر iyo الشام beelahaas waxa kamida Istanbul iyo luqadii magarasa Turkiga Cawreeqa ahayd Ismaan Empire-ki waxa kamida luqadii Urduga ahayd ee magarasa sharq shibal qaar الهنديه دي lagu qoray bilaayinka kutub lagu qoray كلها إلى يومنا هذا وحنا نقولنا تراثك أنت عليك بقولك سديت المسلمين تميل على ميلو كدم بيه ميلو يرتون ورا مهيان وهذا هي وحوير وحيانا إن شاء الله تاريخ دون مركي ضدك أي لقدو ذيك التجان وحلو قولي إنجليش تقدر ما لقى إنجليش برو إنجليش لو ما أدري ما قاعد هو يدانا ماها واحد كبر أنا يساعي راكب أنا دروستي أتكو قاتو ما تقول أنا يساعي كل جن ما يصير من نقول كرسيد قف محكمة سكيك الدفاع من نقول يصير قف علم بارس كو سمايا من نقول يصير قف كلتشر كو كهنا وهي كلتشر كيف كبحثن تاعي مركا مروال بحلو بهي وآد بحلو صبورات دت كير هذا اللغة الصومالية أن حوتشنو وهي اللغة الصومالية سبوردينات وحيوتها اللغة المسلمين تويان وضد كمسلمين أبالا نقل إسلامي كفر ده اللغة العربية أي لا هذه علاقات واللغة ديني maalintii la bedelay xagga laga qoro dhinaca laga qoray laga daayay dhinaca laga qoro waa maalintii turkiguna adaragtay luqadda turkiga waxay ku qornaan jirtay sida urduga iyo carabiga bay u qornaan jirtay dabadna waa laga saaray mar qura moogtay laatiin baa laga dhigay maxaa soo dhacay mujtamac dhan oo aan turaaskoodii luqadoodii diintoodii midnaba ka garanay ba soo baxay moogtay kulliyatan ka guuray moogtay
waxba garanayn basiirooya marka hadii mawduuca runtii shiiqu taabtay ee jaamacadaha iyo luqadda iyo daraasada iyo aqoontu kama imanayso luqad ajnabi oo la barto waad mahadsantahay aad waad mahadsantahay waay cabdirasaaq waxaan doonayay hadalka sheekh xasan inaan in yar ka daba tago oo hadalkaasa khawaadirta ku ciyaamogtay hadalladu markay isbiirsadaan gumaysigiiba inagu aba dugsi walow aanu jaamacada inoo samayn dugsiyo saruu lahaa inaga hargeysa iyo malaa boorame iyo shiikh iyo maca labada dugsi dadkii ka soo baxay role modelkeeni bay noqdeen establishmentkii Soomaalida siyaasadda cidii jaraha u haysay waxay hayeen cidii ahayd labada dugsi sheekh xasan mid waan la qabaayo aqoonta marti uma nihin laakiin aqoontii baa luqad qalaad inaga qoran malaa sheekh xasan iyo sheekh muslimaad mu soo gaadhin iyo sheekh cabdixakiin iyo dugsiyadii Soomaaliya way Soomaali manhajku Soomaali buu ahaa حتى أردق فهم كيسة أنا مركن دوكسي كده حكوا شرني مركانو فيزيكس كإيو كيمستري كإيو أنا كوي أركتشرني كوي وحكسي دوجي صوماليا منهجتي صوماليا أفكار صوماليا كقرنا مركز حساب توكلا إيو ده ستة صد أفهم يسا امتحان كوكلا أما فهم كمعلم بقى حتى مركز قارو مد بهني واي وحي بأفكار هو يكقرن أديو أتفهم يسا شرحات بدنا أنا دبهاني كسب خير مركز قبضته اللي تجيسه مسلمين واحد مدائم بقى بدنا لجلاد على وقونتي مرتين لوجا دقي تذكر وقت كان عرينيا تذكر الله ضباب فرديا تذكر محايا هذي تكنولوجيا دي كينية ساينس كي كينية فيزيكس كي كينية محايا هذي وتذكر دد آن إسلام كأهل واحد عبد الله هو مثل لبعض بنكوسي حوشنا يايو مانتا in ardaydeeni dugsiyadeeni ma aha dadkii macaahidaha dadkii suuqa joogay ma aha dadka fikradaha reer galbeedka cabsanay maanta kaga dheeraynaya dugsiyadii bay ku jirtaa sababta koowaad waxa weeye wadankeeni hubsiima ma laha buutan imanaysa ma soo marayso xagee soo censorship ma soo marayso iskuul aanan magaciisa doonayaan sheego ayaan on maalin muxaadaro galay ayaa arday kamid ahay su'aaluhu weydiinayaan yaabay marka dambaanu sheekaysanay waxa la sheegay in waxaan si caadi ah loogu akhriyo arday keejiya arkaysa oo maxay heeday la tusayo laba inamada carruur yar isku maxay heeday istijoonaya oo is ag taagan oo haday doonaan is eegaya haday doonay qofka leeyahay marka la istijoonay waa la istaagaya caynkano ama sana la sameynaya waxa weeye war waxa kugu socda dhaqan guur xaqii aqoonta kaaga socda marka haddii aynan istabaqabatayn aqoontana aynan inaan islaamiyeyna aynan ku soo dadaalin maxay heeday wax badan ba san isku dhaafay isku aynu hadhow ka qowmeyn doona aad baad mahadsantahay insha Allah xalqadii saddexaad baa intaana inoogu dhan kan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh